waxaa maanta si ballaaran looga ogeysay leeda Ciidul Adha guud ahaanba wadankani Bangladesh sidoo kale boqolaal ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata wadankani ayaa ku tukaday xarunta baarlamaanka wadankani sidoo kale ardaydaasi ayaa dhammaanba u diray fariimo iyo salaamo waalidiintood eheladoodii qaraabadoodii guud ahaanba ardaydani Soomaaliyeed ee wax ka barata wadankani Bangladesh kadib waqtigii salaada ayaan wax ka weydiinay dareenkooda ku aadan munaasabada Ciida ardaydani Soomaaliyeed ee wax ka barata wadankani Bangladesh ayaa waxa ay fariin u direen dhammaanba waalidiintood sidoo kale ardaydani Soomaaliyeed ee ku sugan wadankani Bangladesh ayaa waxay ku kala nool yihiin dhammaanba gobolada uu ka kooban yahay wadankani laakiin mar aan u kurgalnay xaaladooda fariimaha iyo dhammaanba sida ay ugu soo salaamayaan waalidiintood Axmed Saki Asiga Axmed waxaan Ciida Adhada aan uga faa'iideysanayaa halkan inaan ka salaamo familkayga ugu horeyso hooyada macaan Zainab Ali Maxamuud iyo caruurtayda oo kala ah Cabdiraxmaan Yaasiin Gaxnuug Fadxiye Yaasiin Gaxnuug Sacde Yaasiin Gaxnuug iyo Xamse Yaasiin Gaxnuug halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda reer Burco iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ka salaamayaa saaxiibkii Cabdiciis Soomaali oo barnaamijka soo dibariday waxaan halkan ka salaamayaa hooyada qaali aan marnaba ilaawi karayn Maymuun Maxamed Roble waxaan halkan ka salaamayaa aabahay Warsame Hiirad waxaan ka salaamayaa walaashay joogta dalka Faransiiska Hani Warsame Hiirad waa Maxamed Khaliif Cali maantay waxaan halkan u joognaa farxad aad u weyn Ciidul Fidri meeshaan u joognaa waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan familigeyga oo ku nool inta badan Soomaaliya hooyo macaan aabbo inta kale asxaabteeda qaaliga ah runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay anoo heer waxbarasho u joogo wadan shisheeye hadana maanta ciidii fidriga nagu soo aaday aad iyo aad ugu faraxsanahay wassalaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamed Cabdiqaadir Xasan Maxamed Cadde joogo wadanka Bangladesh qaasatan caasimadiisa Dhaka waxaan halkan ku soo tukanay salaada Ciidul Adha waxaan aad ugu faraxsanahay inaan joogo wadanka Bangladesh waxna ka baranayo waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan asxaabteeda familigeyga qaraabadeeda inta muuqayga magacayga taqaano dhammaantood waan salaamay waxaan leeyahay ciideeda ku gaara farxad bashbash iyo barwaaqo ciid mari kullu caam wa antum bil khayr maanta iyo salaamaysa halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ummadda islaamka dunida daafeeda meel walba ay ku nool yihiin marka koowaad Ilaahay bay mahad u sugnaatay subhanahu wa ta'ala halkan waxaan hambaliyada ciida uga dirayaa dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay dunida joogaan ciid mari kullu caam wa antum bil khayr dhammaan shacweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan kala halkan ka salaamay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamed Silaaye iyo marwadiisa iyadana ka salaamaysa Star TV Soomaali horta ugu horeyn waxaan ku salaamayaa adigoo Soomaaliya iyo TV Star marka labaad waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta oo aan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair ciid wanaagsan ciid lamid ah saaxiib sare ya salaamaysa runtii maanta waxaan halkan ka salaamayaa eheladeeda qaraabadayda أصحاب مجاي واليوان أحمد عمر وحان مانتا وهم بليانا مناسبة عيد الأضحى لمان ومدى الصوماليات قاصة وحاربة إن هل كان كسلام والدكي وجو عاصمة دالك مقدشة أهلكي يا أصحاب تيدا وحان كلا هل كان أعدوك السلام يا ولا شيء ياسمين جامع يوديك محمد اللورة oo jooga wadanka Imaaraadka Carabta munaasabada ciida darteed halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka oo dhan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan dhammaan ummadii gobolka Togdheer oo dhan waan salaamayaa ugu horeyn waxaan salaamayaa hooyada qaali Sahra Cabdi Cali iyo adeerkay Abukar dhammaan all family-gayga oo dhan walaaladey oo dhan Najax Farxiya Yaxye Khalid dhammaantood Cabdixakiim dhammaantood aad badan wada salaamaya dhammaan asxaabteydii gobolka Togdheer iyo asxaabta ardaydani oo ka kala yimid guud ahaanba dhulalka ay Soomaalidu degto waxaana ay si nabad ah ugu ciideen wadankani sidoo kale dhammaanba iyo gobolada uu ka kooban yahay wadankani Bangladesh oo lagu tilmaamo wadamada aadka ay Soomaalidu ugu badan yihiin marka loo eego dhanka waxbarashada ardaydani Soomaaliyeed oo dhammaantood isku duuban waxay fariin u dirayaan ummadda muslimka ah gaar ahaan ummadda afka Soomaaliga ku hadasha waa Cabdiciis Axmed Xirsi telefishinka caalamiga Ariel TV caasimadda wadanka Bangladesh ee Dhaka